السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر ديغو maantana sidii caadada inoo ahayd halka kan idinka soo baahin doona barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa arrimaha bulshada bal maanta waxa aynu ka hadli doonaa ama waxa aynu maanta inta inooga suurta gasho aynu taaban doonaa mawduuca la yiraahdo astaamaha lagu garto ninka maaganaha ah maagan waa maxay waa ninka isaga oo xaas hore leh raba inuu gabadh labaad guursado ama tu saddexaad waa ninka waliba wuxuu u badan yahay ninka isagoo hal gabadh oo hore leh raba inuu tu labaad guursado ninkaasaa la yiraahdaa maagane astaama u gaara ayuu leeyahay oo lagu garto xilliga uu maagan yahay inuu mar labaad guursado astaamahaasaynu maanta taaban doonaa waxa laga yaabaa inuu qof kasta wax ka yaqaano bal aniguna inta aan hayo ayaan insha Allah ta'ala aan jecelahay inaan idin soo gudbiyo waa 11 qodob inta aynaan mawduuca bilaabin intiina nadaawanaysa akhyaartiina nadaawanaysa waxaan si xishmad iyo qadarin la idinka codsanayaa in aad barnaamijka dhamaantiin inoo saartaan subscribe like and share si uu dhamaan inta kalena u gaaro wixii fariina wixii tala iyo tilmaana waxaa noogu reebi kartaan qaybta commentiyada ayaa noogu reebi kartaan astaamaha haddaba lagu garto ninka guurdoonka ah maxaynu ka tilmaami karnaa waxaynu ka tilmaami karnaa kow waxa lagu gartaa ninku marka uu yahay maagane ee uu rabo in uu mar labaad guursado isagoo xaas hore leh waxa lagu gartaa kow fikir googoosa haddaad aragta ninkii oo fikiraya fikir googoosa oo aanu hore u lahaan jirin oo markuu in yar joogaba dhabankiya gacanta isa saaraya oo moodaysa inuu leer haysto waxa weeye ninkaasi waa maagane waxbuu maagan yahay inuu gabadh labaad guursadaa buu maagan yahay la soco laba waxa lagu gartaa ninka had iyo jeer maaganaha ah ee raba in uu mar labaad sameeyo guur ee taleefankiisa gacanta oo aanu marnaba gacanta ka dhigin haddii uu suuliga gelayo wuu la galaa mar walba wuxuu ku jiraa surwaalkiisa jeebadiisa mar walba wuxuu jecel yahay inaanu gacantiisa ka bixin oo gacanta xaaskiisa aanu marnaba gelin taleefankiisa ma ogolaado inuu mar kaliya taleefankiisu uu gacantiisa ka baxo ma ogolaado inuu mar qura ninkaasi taleefankiisu inuu mar qura gacantiisa ka baxo ma ogolaado waayo wuxuu ka baqayaa inay ogaato xaaskiisu siraha iyo xiriirka qarsoodiga ah ee ka dhaxeeya isaga iyo dumarka kale taasuu ka baqaya waa lugna baqa ugu joog lugna dirir waxbuu kala ilaalinayaa markaa haddaad aragta ninkii oo taleefankiisa hadday istiraa gabadhu soo yara qaad iska daha taabana leh waxa weeye fiishi halkaa timir laf baa ku jirta taleefankaagan maxaa ku duugan maxaad u qarinaysaa taleefankaagan hadday gabadhaadu taleefankaaga eegto caawaba ay baadho dhibaata kuma jirtadi waayo waynagii hore u sheegnay ee nidhi raggana hal dabeecad baa lagu yaqaanaa dumarkana hal dabeecad baa lagu yaqaanaa ragga waxaa lagu yaqaanaa ninku waa inuu hinaaso lahaada oo hadduu arko gabadhiisa oo cid kale xidhiir lala gaar ahaan rag waa inuu ka hinaasaa nimaan hinaasnin nin maaha baa layidhi gabadhuna waa inay shakidaa mar walba oo ay shaki lahaatahay oo haddii aanu dareenkeeda shakigu taagnayn iyaduna waxa weeye waxbaa ka maqan oo waxbaa ka dhiman markaa shakigu waa qayb ka mida dareenka dumarka hinaasuhuna waa qayb ka mida dareenka ragga waayahay qodobka saddexaad wuxuu leeyahay astaamaha lagu garto ninka maaganaha ah waxaynu odhan karnaa werwer fara badan oo aanu hore u lahaan jirin waxa ku soo biira ninku markuu lamaano yahay aad buu u warwarayaa werwer fara badan oo aanu hore u lahaan jirin ayaa ku soo kordhaya waayo xaalad baa isbedeshay xaalad kala timid xaaladdu ku jiray buu ka gudbay xaalad kale uu rabaa inuu u gudbo xaaladaasi waxay wadataa warwarkeeda iyo walbahaarkeeda ayay xaaladaasi wadataa xaalad kasta oo timaado oo qofka aadamihii ku nool yahay waxbay wadataa markaa ninka haddaad ku aragta warwar saayida oo aanu hore u lahaan jirin oo uu warwarayo wax ku soo kordhay baa jira waxa laga yaabaa in uu yahay maagane ama uu rabo in uu gabadh labaad guursado afar waxa uu sameeyaa had iyo jeer
ninka maaganaha ah waxaa lagu yaqaanaa oo ka mida qorshayaashiisa ama dabeecadaha lagu garta ninka maaganaha ah ee raba inuu gabadh labaad guursado waxaa lagu yaqaanaa safaro googoos ah. safaro googoosa ayaa safaro tuuga ah baa lagu yaqaanaa sorry safaro tuuga ah ayaa lagu yaqaanaa oo uu qorsheeyo isaga oo ninkaasi doonaya ama ka qarinaya safaradaasi xaaskiisa oo la wada isaga oo wax la wada gabadh kale. safaro tuuga ah ayuu qorsheeyaa. matalan tusaale ahaan isaga oo jooga gobol ka mida gobollada Soomaaliya ama xagga iyaga qoryaha iyagan jooga qurbaha, matalan annagu Germany baanu degannahay, isaga oo magaalada Berlin degan ayaa wuxuu oranayaa shirkadayadii baa waxay noo dirtay bisha soo socota 7 cisho oo waxaa la ii diray aan ka soo shaqayn doono Bayern Munchen, marka halkaasaan tagayaa xaajiyo sidaa ula soco. waxba kama jiraan arrintaa. waa safar tuuga ah oo qorshaysan oo uu muxuu ku qarinayaa xiriirkiisa qarsoodiga ah. wuxuu u tagayaa ama uu kulan la yeelanayaa gabadhii ay wax ka dhaxeeyeen. waa suuragal. waayahay qodobka shanaad wuxuu leeyahay xaaskiisa oo uu ka xanaaqa marka ay weydiiso qarash dheeraada. had iyo jeer ninkani astaamihiisa lagu garto waxaa ka mid a xaaskiisii aanu awalka hore ka xanaaqi jirin marka ay qarash dheeraada weydiiso. ileen qoysku marmar buu qarash dheeraada u baahan yahay. xilliyada ciiduhu jiraan, xilliyada xafladuhu jiraan, marka aroosya ay jiraan, marka waxa weeye gabadhu ay xaflad ka qayb galaysa matalan qoyskeeda ama qaraabadeeda marka ay hawli jirto ee qoyska hawli ku soo korodho ama xafladi ku soo korodho qarash dheeraada loo baahan yahay. marka martii joogto qarash dheeraada loo baahan yahay. marka xaaskiisu haddii ay qarash dheeraada weydiiso awal hore kama xanaaqi jirin, laakiin hadda waa ka xanaaqaa. maxaa keenay? waxbaa isbedelay. wuu damqanaya, waayo qarashkii dheeraadka ahaaye uu bixin lahaa dee meel kaleu ku bixiyey ogow. waayahay taasina waxa weeye xaaskiisa oo uu ka xanaaqa marka ay weydiiso qarash dheeraada oo uu reerku u baahan yahay. qodobka 6aad wuxuu leeyahay mushaharkii uu qaadan jiray oo aan kuba filaanin. ninkani mushahar buu qaadan jiray, mushahar buu ka qaataa meel, sharikad buu u shaqeeyaa, shaqadiisu noocay doonto ha ahaato. mushaharkaa uu qaadan jiray isaga iyo reerkiisa barbar buu u tuuri jiro, waa ku filaa. hadday kira tahay iyo hadday kimis tahayba waa uu ku filaa mushaharkooda. laakiin imika waxa hadda waxbaa soo kordhayoo dee ninkii maadaama uu mashruuc cusubi ku soo kordhay mushaharkiisii kuma filla. mar walba meel buu wax ka amaahanaya. dukaamada magaaladuu wax ka amaahanaya ee gaar ahaan Soomaalida wuxuu wax ka amaahanayaa meheradaha Soomaalida. meel walba deyn baa lagaga yeelanaya. gebigiisu wuxuu noqonayaa deyn ku nool. awal hore bilaa deyn buu magaalada ku joogay, laakiin maadaama ay hawl cusub ku soo korodhay ninkii wuxuu noqonayaa nin deyn badan lagu yeesho oo maxaan ku dhahday mushaharkiisii aanu ku filayn, waayo hawl cusub buu dhex galay. qodobka 8aad wuxuu leeyahay waxa lagu gartaayo ka mid ah astaamaha lagu yaqaano ninka maaganaha ah xarago iyo xiirasho iyo xeelado cusub buu la soo baxaa. xarago cusub, xiirasho cusub, xeelado cusub oo hore u lahaan jirin, intaba wuu la soo baxaa. mar walba wuxuu soo iibsanayaa intaasoo shandad dhar. bil walba 2 jeer baa laga yaabaa inuu shandad dhar soo iibsado. awal hore waxa laga yaabaa inuu 3 bilood ama 4 bilood uu hal mar soo samaysan jiray shopping ama uu wax soo yara iibsan jiray. laakiin hadda waa lagu soo kordho. waa nin isdhis ku jiro oo dee meel kale isu dhisaya. marka waa kordhi socodka. hawshiisu waa kordhi socodka. waa maagane. qodobka 9aad waxa uu leeyahay qodobka 8aad intaynaan ka bixin xarage iyo xiirasho iyo xeelado cusub ayuu la soo baxaa. weliba wuxuu ku daraa xaragada iyo xiirashada iyo xeeladaha cusub ee uu la soo baxay xaaskiisa oo uu ka aflagaadeeyo meelaha la isugu yimaado oo uu yidhaahdo waa tuxunoo basariya, waa tuxunoo candaa, ilaahay carruurtaasun baan kula joogaaye ma naag la qabaa, intaasaan ka dhalayo intaba silic baan kaga dhalay, naag maaha, allun baa ii geeyey, waa maraado, waa sidan iyo sidaa. waxaasu akhriya. ninku inuu qoyskiisa ka sheekeeyo ama xaaskiisuna waa mamnuuc inaga xagga diinta maadaama aynu nahay bulsho muslima.
ma banaana in ninku qoyskiisa iyo reerkiisa uu ka sheekeeya khayr mooye inuu shar kaga sheekeeya ama xumaan ma banaana xataa haddii ay xun tahay ma banaana inuu ka sheekeeyo waxaa la doonayaa inuu asturo oo uu qariyo ayaa la rabaa qodobka sagaalaad dareenkiisa shakiga ayaa cirka isku shareera mar walba waa shakisan yahay oo dhagtaasaa taagan muxuu ka shakisan yahay mar walba wuxuu ka shakisan yahay armay gabadhaadu soo maqashay adigu xidhiirkii aad la lahayd gabadha kale mid baa maanta aqalkaaga sii gelaysay ka mida gabdhaha magaalada Soomaalida warbilay taasi warka soo maqasho u sheegtay mar walba dareenka shakigiisa taagan mar walba dareenkiisa shakiga ayaa taagan oo cirka ku shareeran waxyaabo badan oo uu hore u ogaa ayuu hadeer ka sasaa oo shaydaanka iska naara isaga oo sharkooda iyo shidadoodaba ka cabsi qaba waayo dee waxa weeye waa wixii uu falay buu ogyaho Soomaalidu waxay tiraahdaa layligu biyaha kashiisa ku jiro ka didaa wuxuu sameeyo ogyaho ama wuxuu ku jiro ogyaho taasaa keenaysa shakiga marka ninku hadduu maagana yahay shakigiisu aad buu u bataa shaki aanu lahaan jirin buu yeeshaa taasina waa qodobka ku xigaa waxa uu leeyahay haddii uu ninku caruur leeyahay waxa uu ka gaabiyaa caruurta la socodka hawlahooda dugsiyadooda waxbarashadooda caafimaadkooda ballamahooda wixiiba uu ka gaabiyaayo awal siduu ugu helanaa uguma helana waayo booskii wax kala galay haddii la oran jiray awal wallaahi ninka hebelha waa nin caruurta aad u jecel hadda xaaladdu sidii way iska bedasho waxa weeye ballamihii ay lahaayeen caruurtu wuxuu oranayaa gabadha na orodoo raacadigu haddii iskuulka looga yeedho oo macallimiinta iskuulku ay ballan u sameeyaan oo ay yidhaahdaan aabihiin ama waalidkiin ha noo yimaado u tegi maayo isagu iyo gabadhu odhanaya naa orodoo u tag iyadoo hadday doonto aan haleelayn boo hawl kala haysa markaa kuwaasina waxay ku tusayaan markuu ninku caruurtiisii daryeelkoodii ka gaabiyo waxay ku tusaysaa inuu yahay ninkaasi maagane ayay ku tusaysaa qodobka ugu dambeeya ee aan ku soo koobayaa waxa weeye waxa ku soo kordha ninkii odayga ahaa ee maaganaha ahaa kharashaad aanu hore u qabin ayaa ku soo kordha oo fara badan kharashaad aan hore u jirin baa soo kordha kharashaadkaasoo ku baxaya xiriirkan cusub ee qarsoodiga ah mar walba isaga iyo gabadhiisu waxay isku haystaan lacag xageed geysaynta markaasuu odhanaya waxaasaan ku bixiyey waxaan jirin ilaa waa lacag meel daloosho lagu riday waa lacag meel laga riday ilayno ciddii kale ee uu xiriirka qarsoodigii u dhaxeeyey ayay dee kharashkaasi uu ku baxay markaa afka kama odhan karee waa inuu u sameeyaa dee kiis oo uu yidhaahdaa waxaasay ku baxday qaaraankii tolkaan ku bixiyey sidaanaan yeelay waxaasuu ku marmarsoonaya maanta insha allahu tacaala intaasaan kusoo koobayaa waa astaamaha lagu yaqaano ninka maaganaha ah ee isaga oo xaas hore lahaa raba in uu gabadh labaad guursado haddaad qodobadaa mid ka mida ku aragto waxa weeye waa fiiro gaara ninkaa waa lala soconayaa dabagal baa lagu samaynayaa xaaladiisa waa in loo kuur galaa si loo ogaado dhab ahaan waxaani ma jiraan mise ma jiraan astaamaha qaar ka mida haddii marka aad aragtaan bal hadda waxa weeye fariinta waxaan jecelahay in commentiska aad ku soo qortaan dee qof walba wixii aad la kulanto annaguna insha allahu tacaala wixii aanu khibrad iyo waayo aragnimo hayno waa idiin soo gudbinaynaa xalkana waa idiin soo gudbinaynaa weliba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu